سيدي وين فوق مقابل سيدي برسل الله شيء واجب daawadayaal si degan muuqaalka u daawada hordhaca aad aragteen ba nimcaan hilaac ayaa waxa lagu bahdilay xalfadii kooda luuliyo ee ka dhaceysay Mareykanka gaar ahaan Ohio nimcaan waxa uu ku sigtay xitaa in la feero isaga oo markii dambana mikrofoonka tuuray waxaan idin haynaa warbixin xasaasi ah oo ku saabsan arintaas fadlan haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay muuqaalka like noo saar qaybta hoose ee commentigana waad naga dhiirigelin kartaan stariskana waad noo taaban kartaan waxa ay nooga dhigan tahay in xilli kasta halkan aad kala socotaan barnaamijyada noocan oo kala ah daawada aan ku bilowna sida aad wada ogtihiinba Soomaaliya iyo waliba shacabka Soomaaliyeed waxa ay u dabaaldegayeen meel kasta ay joogaanba maalmihii xurriyadda ama isbuucii xurriyadda fanaanka da'da yar ee lagu magacaabo nimcaan hilaac oo ka soo jeeda Somaliland gaar ahaan Boorama ayaa waxa uu ku sugnaaba sanadihii ugu dambeeyay dalka Mareykanka nimcaan inta badan dhowr jeer ayuu waxa uu risk u galay isaga oo midnimada Soomaaliya kor u qaadaya ama ka sheekeynaya laakiin waxa ku dhacay ma ahayn wax yar dhowr jeer oo hore waxa jirtay Somaliland gaar ahaan magaalada uu ka soo jeeday ee Boorame lagu burbursaday waxa jirtay ilaa dhowr jeer oo la xiray nimcaan oo bandhig faneed weyn ku qabanayay stage-ka uu ka degan yahay dalka Mareykanka ee Ohio ayaa waxa isku soo baxay bandhigiisa dad aad u fara badan ma jirin shakhsiyaad lacag ku siineysay sida showyada Sultan Serar iyo waliba Sharma Boy oo kale ee kan waxa uu ahaa mid jaaliyadu ay soo qaban qaabisay isaguna uu codkiisa iyo waliba muuqaalkiisa uu ku taageeray ama uu ku sadaqaystay maalmaha xurriyadda Soomaaliya nimcaan hilaac sida aad wada ogtihiinba waxa uu ku jiray fanaaniintii ama kooxdii lagu magacaabi jiray xidigaha geeska laakiin markii dambe waxa uu uga baxay arimo asaga khaas u ah sanadihii ugu dambeeyana waxa uu ku sugnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wallow markii dambe xaaskiisa ay u kaxaysay dalka Mareykanka nimcaan waxa uu yimid yar ka soo jeeda cameraman ka ahaa sidoo kalena qolyaha muuqaalka duubaysay ahaa oo stage-ka la saarnaa sida aad haddaba shaashada ka aragtaan wiilkan cameraman-ka ah waxa uu nimcaan hilaac ka qaaday warqad ay calanka Soomaaliya iyo waliba ay ku sawirnaayeen dad ka soo jeeda Soomaaliya oo loo mahad celinayay nimcaan hilaac warqadii ayuu ninka ka qaaday sidoo kalena uu jaxjeexay Mareykanka waxa taala wax loo yaqaano xurriyatul qowl oo qofka iskama maagi kartid korkiisa haddii aad taabtidna hadduu iska ka u difaaco xaq ayuu u leeyahay laakiin nimcaan awood kale uu sameeyo ma jirin mikrofoonkii uu ku heesayay ama uu ku qodbeenayay ayuu dhulka ku tuuray sidoo kalena waa uu ka degay stage-ka ilaa ay hadda waxa jiray wararna soo gaaraya oo sheegaya in nimcaan isku day dad ka soo jeeda Somaliland ay inay foodeeyaan rabeen sidoo kale waxa naloo soo sheegay in gaarigiisa uu watay muraayadaha qaybta dambe laga jajabiyay haddaba waa kana muuqaalka oo dhameystiran iyo waliba qaabka uu ninku warqada uga jaxjaxay ee nala daawada dabcan sida weynada fوق مقابل sida bulshada loo sheegay waajib Let's go. inkasta hadiide waxaan doonayaa nolol ka dawayntan qabo midnimada dalkaygiyo waxaan doonayaa guul wada deeqda unko dadku simayahay reer kulmas kaldamaan mayno waa maalin qaaliya Let's go.
sida weynada foqa maqaabisana bulshada loo sheego waajib Let's go.